wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay uu idin hayo calanka TV qodobada aad ku daawan doontaan wararkeedana waxaa ka mid ah Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble oo dalka isaga baxaya iyo beesha caalamka oo ku cadaadinaysa in Roble iscasilo kadib fashilkii arrimaha doorashooyinka qaranka madaxweyne Farmaajo oo beesha caalamka ku gacan sayray kadib kulankii xalay looga codsaday inuu qabto hoggaanka doorashooyinka dalka iyo waliba amniga iyo jawaabta ay ka bixisay filla Soomaaliya wararkeena ayaa idinku haynaa taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed Jeneraal Xijaar oo amar ku bixiyay in la soo xiro wasiirka amniga dowladda federaalka ee Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Nuur kadib baaristii Roble iyo kiis cusub oo ku soo baxay ayaan warbixinteena ku eegi doonaa halkee ayuu marayaa shirka maamulada iyo dagaalkii shalay dhex maray lafta gareen iyo dani ma laga heshiiyay arinta iyadana warkeena ayaan si fiican uga faahfaahin doonaa Roble oo Soomaaliya bahadiray raaligelin siiyay Imaaraadka una celinaya lacagtii laga wareegay 2018 iyagoo doonaya inay qaranka ku dumiyaan Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo shir qarsoodi ah shalay la yeeshay madaxda maamul goboleedyada qaarkood inta uu shirku socday iyo arrimaha uu kala hadlay oo la ogaaday ayaan warbixinteena si qoto dheer uga faahfaahin doonaa qodobada iyo kuwa kale oo xiiso badan ee aad barnaamijkeena ku daawan doontaan fadlan daawada haddii ay tahay markii koowaad aad soo booqato channelkeena subscribe oo furo gambaleelka si aad u noqotid daawadaha koowaad ee barnaamijyadeena mahadsanid Maxamed Xuseen Roble oo ahaa Ra'iisul Wasaarihii hore ee Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya oo raba inuu dalka isaga baxo iyo beesha caalamka oo ku cadaadinaysa in Roble uu iscasilo kadib fashilkii arrimaha doorashooyinka qaranka Roble ayaa xalay isku dayay inuu mar ciidamo raadsado si uu dagaal ula galo madaxweyne Farmaajo balse xaaladda oo la xumaatay ayuu wax uu go'aansaday inuu dalka isaga baxo beesha caalamka iyo madaxweyne Farmaajo ayaana iska garabsanaya sidii xilka looga qaadi lahaa Roble dhanka kalena Ra'iisul Wasaare Roble ayaa si toos ah u bahdilay qarannimada Soomaaliyeed kadib markii raaligelin uu ka bixiyay lacagtii laga wareegay Imaaraadka 2018 iyagoo doonaya inay dalka soo geliyaan lacag sharci darro ah si ay shacabka Soomaaliyeed ugu dhibaateeyaan Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa maanta dowladda Imaaraadka ka raaligeliyay dhacdadii bishii Abriil 2018 ay dowladda Soomaaliya uga wareegtay lacag laga soo dejiyay garoonka Aadan Cadde Roble ayaa hadalkan lama filaanka ah maanta ka sheegay Muqdisho xilli uu dowladda Imaaraadka Carabta ka guddoomay deeq gargaar ah oo loogu talagalay caawinaanta dadka abaartu saameysay deeqda ayaa waxaa Roble ku wareegiyay safiirka Imaaraadka Carabta ee Muqdisho Maxamed Al Cusmaani Ra'iisul Wasaare Roble ayaa ballan qaaday in lacagtaasi oo ku jirto gacanta dowladda lagu wareejin doono dowladda Imaaraadka waqtiga ugu dhow Roble oo dowladda Imaaraadka ugu mahadceliyay garab istaagga shacabka Soomaaliyeed waa sida uu hadalka u dhigay ayaa sheegay in ka go'an tahay in xoojinta xiriirka soo jireenka ah ee labada dal ay si adkeeyaan dowladda Imaaraadka oo ah cadawga koowaad ee Soomaaliya marka loo fiiriyo dalalka khaliijka ayaa bishii Abriil 2018 dowladda federaalka ah ee Soomaaliya gacanta ku dhigtay lacag dhan 9.6 milyan oo dollar oo garoonka magaalada Muqdisho uga soo degtay safaaradda Imaaraadka ee Muqdisho taas oo horseeday in Imaaraadka ay joojiyaan tababaradii ay sii jireen ciidanka Soomaaliya xiriirka labada dalna uu gaaro meeshii ugu xumeyd dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay lacagtaasi loogu talagalay in arbushaad siyaasadeed looga sameeyo dalka balse Imaaraadka ayaa ku dooday inay uga talagaleen mushaarka militariga Soomaaliya oo qayb ka mid ah xilligaasi tababar ku jireen Roble ayaa maanta taariikh madow oo siyaasadeed ka sameeyay dalka kadib markii uu noqday ra'iisul wasaarihii ugu horeeyay ee dhowr jawaan oo mucaawinaha u istaagay airportka sidoo kalena dal ay xurguf siyaasadeed ka dhaxayso Soomaaliya raaligelin uga bixiyay khalad ay iyagu galeen Roble oo hadda huwan magaca ra'iisul wasaare balse madaxweyne Farmaajo uu asbuuc ka hor ka qaaday ayaa qas siyaasadeed ka wada dalka isagoo doonaya maalmaha soo socda inuu isaga dhoofo kadib markii dalka uu qaso madaxweyne Farmaajo iyo tiimkiisa oo qorsheynaya inay maxkamadeeyaan ra'iisul wasaare Roble ayaa iyagana ku dadaalaya Roble wax walba iyo tallaabo walba uu qaado inay ka daba tagaan oo ay maxkamad la tiigsadaan dhanka kalena madaxweyne Farmaajo ayaa ku gacan sayray beesha caalamka
oo xalay kulan ay ku qaateen madaxtooyada ugu codsaday inuu qabto hoggaanka doorashooyinka dalka iyo weliba amniga iyo jawaabta ay ka bixisay Villa Soomaaliya oo mucjiso ku noqotay beesha caalamka. Villa Soomaaliya ayaa warqad ay u dirtay beesha caalamka xalay kulankii kadib waxaa lagu sheegay in madaxweyne Farmaajo uu mar walba mas'uul ka yahay arrimaha doorashooyinka iyo amniga dalka uusan uga hibaysan doonin beesha caalamka iyo dalalka kaleeto ee la socda. beesha caalamka ayaa arrintaasi ku tahay dhabarjab aad u weyn maadaama uu madaxweyne Farmaajo u sheegay in dalkan iyagu aysan shaqo ku lahayn oo uu la mid yahay dalalka kale ee caalamka balse ay ka taageeraan dhaqaalaha iyo sidii uu hore ugu socon lahaa kaliya ma ahana aysan amnigiisa faraha la soo gelin. dhinaca kalena taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya Jenaraal Xijaar oo amar ku bixiyay in la soo xiro galabta wasiirka amniga Cabdullaahi Maxamed Nuur kadib baaristii Rooble iyo kiis cusub oo ku soo baxay. Cabdullaahi Maxamed Nuur oo ah ganacsade kamid ah xildhibaanada dowladda federaalka Soomaaliya sidoo kalena si sharci darro ah dhawaan uu ra'iisul wasaare Rooble ugu magacaabay wasiirka amniga dowladda federaalka ee Soomaaliya. Cabdullaahi Maxamed Nuur ayaa raad soo galay asbuuc ka hor markii baaris lagu sameeyay ra'iisul wasaare Rooble isagoo isku dayay guddiga baarista inuu jahawareeriyo balse baarista oo markii hore ku socotay Rooble ayaa hadda faraha la gashay Cabdullaahi Maxamed Nuur oo lagu hayo cadeemo aad u waaweyn kuwaas oo ah inuu lunsaday hanti aad u fara badan. baarista oo markii hore ku ekeed kaliya intii uu joogay ra'iisul wasaare Rooble ayaa hadda faraha la gashay 10 sano waxyaabo ka sii horeeyay. Cabdullaahi Maxamed Nuur oo dadku u yaqaanaan 30 milyan haysta ayaa lagu xasuustaa sida uu uga taajiray hantida shacabka Soomaaliyeed. taliyaha booliska Soomaaliya Jenaraal Xijaar ayaa amar ku bixiyay in la soo xiro ilaa inta baarista laga soo dhameystirayo. dhanka kale hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ayaa iyana ku raacay taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed maadaama taliyaha nabad sugidda iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka ay qaraabo dhow leeyihiin wasiirka amniga dowladda federaalka Soomaaliya. ayaga ayaan ka garab siinaya sida loo soo xiri lahaa Cabdullaahi Maxamed Nuur 30 milyan haysta oo sida ay wararku sheegayaan hoteelo iyo maqaayado waaweyn oo dalka iyo dibaddiisaba ka dhistay hanti ay leeyihiin dad shacab ah oo Soomaali